جيبوتي ayaanle Suleeman ayaa mar dhaweyd waxa uu ku guuleystay bilada dahabka isagoo badiyay orodka 1500 mitir ee ciyaaraha wadamada Carabta ee maalmahan ka socday magaalada madaxda Dooxa ee dalka Qatar halkaasi ayaa orodyahanka reer Djibouti uu isagu ku guuleystay bilada dahabka ee markaasi orodka 1500 mitir ee ciyaaraha wadamada Carabta ee magaalada madaxda Dooxa ee dalka Qatar ayaanle Suleeman saddex midhidh iyo 34 ilbiriqsi ayuu halkaasi keenay isagoo ugu dambeyntii aakhirkii labadaasi orodyahan iyagu u dhashay dalka Qatar uu ku dhaafay halkaasi ayaanle Suleeman isagoo ka guuleystay markaasi labadaasi kale orodyahan ayaanle Suleeman ayaa sidaasi ku qaaday orodka 1500 mitir ee markaasi ciyaaraha wadamada Carabta isagoo ku guuleystay bilada dahabka ayaanle Suleeman orodkaasi 1500 mitir oo kow uu baxay oo markaasi uu keenay 3 midhidh iyo 34 ilbiriqsi halkaasi ayaanle Suleeman uu ku guuleystay si rasmi ah orodkaasi isagoo farxadiisa markaasi halkaas sawiradan ay muujinayaan iyo calanka dalkan jamhuuriyadda Djibouti oo markaasi si rasmi ah halkaasi uu isagu uga babanayo calanka dalkan jamhuuriyadda Djibouti ee qaranku halkaasi ayaa orodyahanka reer Djibouti oo ku guuleystay bilada dahabka orodka 1500 mitir uu qiyaas karilay farxadiisa iyadoo ay tahay sharaf iyo mudnaan u soo hoyatay dalkan jamhuuriyadda Djibouti guushaasi uu soo hooyay orodyahanka ayaanle Suleeman ee ku badiyay markaasi orodka 1500 mitir iyadoo ay tahay biladii dahabka ay dalkan jamhuuriyadda Djibouti في شهر 12 هو شهر التدريب يا عثمان. بالمناسبة سعيد هذا الزمن أهله للألعاب الأولمبية زمن التأهيل للألعاب الأولمبية 3 مؤهلين يا 3 دقائق 35 50 أو 3 دقائق 38 هنا الزمن 3 دقائق 34 32 وحمزة دريوش 3 دقائق 34 43 ومحمد القرني 3 دقائق 34 61 أعتقد أجمل ما شاهدنا في المنافسات هذا اليوم القوة. هو سباق في كل منافسة ألعاب القوى عثمان هي سباق 1500 متر يعني عندما قلنا سباق العمر سباق العمر يا عثمان أنت ما تخطئ يا عثمان رائع جدا من لا يخطئ يا نعم سعيد لا في ألعاب القوى احنا نتكلم رياضيا يا عثمان نعم صحيح عثمان الإنسان إنسان نعم عثمان قلت شيء رائع جدا نعم قلت سباق العمر سباق العمر نعم فشيء برافو عليك يا عثمان سباق العمر 3 دقائق 34 32 لهذا البطل حسن آيانليه من جيبوتي و 43 لحمزة درويش و 34 61 لمحمد القرني فلهذا أقول بأن عثمان أرقام شبه خيالية في هذا الوقت الحالي. نعم إذا نهاية رائعة ختام ممتاز لسباق 1500 متر المنافسة الكبيرة المنافسة الشريفة والتواجد لجيبوتي يعني نفتخر عندما نشاهد دولة عربية كجيبوتي تفوز لأول مرة في تاريخها بميدالية ذهبية. والله يا عثمان جيبوتي كانت قوية جدا سواء في 10 كيلومترات 5 كيلومترات كذلك والآن في سباق 1500 متر وهذا الأداء عثمان حتى طريقته في الجري ليس مخدومة ليس يعني ليس لا جاهز زال نعم ليس ما جاهز 100% مسقول نعم فعليه فهذا إذا تدرب كما يجب يا عثمان سيكون بطل قوي جدا يا عثمان صحيح. نعم عثمان تذكر هذا الاسم يا عثمان سيكون خطير جدا في الألعاب الأولمبية تذكر هذا الاسم والضحى أتاحت له فرصة عثمان لكي يشارك في هذه الألعاب العربية لكي يحصل على رقم قوي لجيبوتي على مستوى الدورات الرياضية العربية منذ 58 عاما تحديدا منذ أول دورة أقيمت halkaasi ayaa danjiraheena dalkan jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya dalka Qatar Muumin Xasan Barre uu isagu ku gudoonsiiyay halkaasi bilada dahabka iyadoo orodyahanka reer Djibouti ayaanle Suleeman oo ku guuleystay kaalinta koobaad ee orodka 1500 mitir ee ciyaaraha wadamada Carabta ee lagu qabtay magaalada madaxda Dooxa ee dalka Qatar halkaasi ayaanle Suleeman isagu keenay 3 daqiiqo
iyo 34 ilbiriqsi iyadoo halkaasina si rasmi ah calankii Djibouti إذن أيها الأعزاء كان هذا هو النشيد الوطني الخاص بجيبوتي. halkaasi ayaa hambaliyo ayaan ku leenahay Ayaanle Suleeman guushaasiyan sharafta badan ee uu soo hooyay dalkan Jamhuuriyadda Djibouti orodyahanka kale reer Djibouti iyaguna halkaasiyan ku sugan ee qaybaha kala duwan ee orodada iyo ciyaaraha kala ka qayb qaadanaya iyagana waxaan u rajeynaa in guul heer qarana iyaguna ay noo soo hooyaan